لها بش السجادات كودي هذا بلابن لها يا ورياش وحي ويديين حاسلين وحسريان بشي كلمانتي كودهاي ووقتي نبوذي الشرك بلوضو marka halkaasa warbaahintu waxay iga weydiisay inaan caddeeyo sababta shirkii dib dhigtay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin shirku muu baaqan wuu dhici doonaa haddii aan la yidhaahdo laakiin waxaa dib loogu dhigay garaad Saleebaan garaad Maxamed yaa codsaday beesha ugaaryahan oo uu yidhi kala daadsanaan iyo waxaa ku jirta khilaafyo iyo dhibaatooyin dhex maray dhexdooda oo aan la hagaajin yaa aawadeed halay dib dhigo in aan shir horaad qabsado oo beesha aan ku heshiisiinayo sidaasuu isimada u soo jeediyey tala ku soo jeediyey isagoo gogoldhiga ahaa oo ahaaba beesha dee haatan meesha shirka lagu qabanayo deegaanka u ahaa ama ahaa ninkii khaatumo gogoldhigeedii iyo haatan cid walba lahaa nin weyno uun haatan reer khaatumo ragga waaweyne isimadaana ah codsigaasuu soo jeediyey markaa sidaa aawadeed waxaanu istusnay in horta bal haddii garaadkiisaa soo jeediyey in la xaq dhowro inta shirkoodu qabsoomayo wuxuuna ballan qaaday 25 casho kadib buu oo shantii tagtay 20 casho meelaha yaa shirku noo bilaabanayaa muddo aan dheerayna wuu noo soconayaa sarmaayo ka dhacaya soo jeedintaasaa garaadkii uu noo soo jeediyey isagoo hormuud badee ah oo odayaasha hormuudka ka ee isimada ka mida gogashana ninkii markii horeba ku dhawaaqaya taasuu waxaa laysla gartay inta aan dee lagu xaq dhowro inuu shirkaa heshiiska beesha uu qabto uu ku xigo kii shirweynihii beesha khaatumo isteed Soomaaliya oo ah in lagu xijiyo kaana garaadka codsadayna la hormariyo intaasaa dib u yar dhigtay shirkii weli ayaanta shirka dambe la qabanayo waa la soo sheegayaa ismada oo dhan iyo haatan golaha jiitay iyo wuxuu waa isla qaadanayaan gudaha iyo dibaddaba waa la iskala qaadanayaa muddadaa waa la isla ogaanayaa oo muddo ka dhaafaana bay noqonaysaa muddo uu dhici doono shirkaasi ayaa aada looga fiirsanayaa dib baana laga soo sheegi doonaa haddii ilahay Suldaan wararku waxay qaar sheegayaan in maadaama taleex u booqday madaxweyne xanuunka Puntland Cabdisamed Cali Shire halkaana ciidamay tageen isla markaana beesha ugaaryahan ay shir qabsanayso in qorshihii taleex ahaa in aan lagu qaban shiroonahan deegaan kale oo soo sanad gacan kamid lagu qabto wararka maxaa ka jira oo suuqa ku jira wuu tagay Cabdisamed waa tagay oo waa joogaa hadda wuu joogaa laakiin sida uu tagay sida naloo sheegay idaacadaha laga dhageystay kolley reerkooda dhexdiisa dhibaatooyin ka jira wuu u yimid wuu ka socdaa xagga Puntland wuu ka socdaa waa madaxweyne ku-xigeen buu ka yahay laakiin hadda dhibaatooyin kolley reerka dhexdiisa ah oo taleex dhexdeeda ah oo shirkii hore markii la qabanayay dhacdooyin dhacdo aan weli meel la dhigin yaa jira marka kuwa aawadood waanu imid baa laga sheegay dee waxa uurka ku jira waxa afka laga sheego ayaa la xukumaaya uurkiisa waxa ku jira dee annagu waruma hayno rabbi baa og laakiin waxa uu isagu hadda u yimid kolliba la og yahay haddana lagu guda jiraa waxaa weeye dhacdooyinkii ka dhacay markii shirkii khaatumo la bilaabay halkaa taleex xaqiiqdu taa kolley waa caddahay
wararkuna way iska badan yihiin war jiraaba cakaaro iman way soo bixi dhulku waa badan yahay dhulkuna waa ballaaran yahay dadkuna waa ballaaran yahay كسلان أنا دان سؤال كله عن كوديو إسلام كسب سنة لاحة بعمر كل شيء إنه كده اسمه هذين محط بعمر شركان كنا كده وهذا الشيء كان بعمر شركتين واحد شيء كم فلوس عرضين ما شركة بعمر شركة شروي معي سمعوا والتليفون بيكون بالحديدين لكن شن بنوضم بابا سوق تقلي لكن تقول هاي كل جاي التليفون كم بالجود عدلي قرأت سلبان والله وضع عدلي قرأت شامع حق سكين شوقين ووضع عدلي قرأت عبد السلام قرأت مشقري ولا لا عدلي تليفون كانوا يحلولي وحبوا وحيون كصاب صناعي شركة إمكا هدي عدسي قرأت كصور شيدي جيرو شركة نهضة هي شركة كان مدنان تلسين ياهو انت وحنت على سيسانو طلع ماشي اللي يلاحظوا طبعا وحنت على سيسانو سمر كسوق هذا المتر اوكي سلطان سعيد ماموركي خاتمو رجلي wax kala sabaday sanad isteebro waqtigiisa waa dhamaaday dawladdaas waa maamulkaas waqtigiisa waa dhamaaday ilaa heer wasiirada golaha madaxtooyo mar haddii waqtigu dhamaaday maxay imika u sii shaqeynayaan dad badan ba isweydiinaya maxaad u kala diri weydeen oo imika u shaqeynayaan mar haddii waqtigu dhamaaday hadda uu shaqeynaya wali maamulkii waxa shaqeynaya oo xilkii la wareegay markii u dambeysay ayna ahayd arintu inta laga dhisayo maamul shirweyne inta la qabto maamul kale la dhisayo waxa sii wadaya binde oo madaxweynaha yaa xilkii markii u dambeysay la wareegay ilaa iyo haddana xilkii isaga haya ilaa iyo laga wareegay ilaa shirku qabsoomayana madaxweyne binde yaa sii wadaya hawshii ugu dambeyntii Puntland xalay waxay sheegteen ciidamo ka tagay Buuhoodle saaxadada halka tageen maxaad kala socotaan idinku ka ismahaan ciidamada ka tagay ciidamadaas way jiraan ciidamadaas waa ciidamadii qaatimo meeshii ay tagaan badee Soomaaliya guryahoodii bay tageen taas isweydiin bay leedahay awalba way joogeen booca ama awalba ciidan fara badan baa deganaa imikana ciidan baa ku biiri yaa la yiri marka taas jamxay waa awalba waa joogeen markii hore badee ciidan fara badan baa fadhiyay oo loo ogyahay cid walba walba ka dawaan gashan oo qaatuma ciidan badan oo qaatuma ah awalba dee joogo deganaa imikana wax qaybo un baa ku biiray marka arrinta dawladda